waxaa la gaadhay xilligii uu dhammaan lahaa koobka dunida ee sanadka 2022 finalka oo dhici doona 18 Diseembar ee sanadkan 2022 oo ay ku loolami doonaan dalalka Argentina iyo wadankaasi Faransiiska oo isagu difaacanaya koobka ayaa hore u qaaday 2018 labadan dal ayaa mid walba waxa uu ku guuleystay min 2 jeer haatan waxa loo saadaalinayaa inuu mid labayn doono ama uu saddexayn doono inuu markii saddexaad ku guuleysto koobka dunida dalka Qatar oo sanadkan marti galiyay waxa dhacay dhacdooyin waaweyn koobka dunida ugu dambeyntiina waxa isku soo biyashbatay in wadamo fara badan oo loo saadaalinay koobka dunida ay meesha ka baxaan sidoo kalena dalal aan saadaasha kuba jirin ay sare soo maraan oo iyagu kula gorgortamaan dalalka semi-finalka koobka adduunka dalalkaasi waxa ka mid ah wadanka Morocco oo ka soo jeeda qaaradda Afrika sarana u qaaday haybadda iyo quruxda qaaradda waxaana sidoo kale uu sare u qaaday ama uu mideeyay kooxdaasi Morocco wadamada Islaamka iyo shucuubta Islaamka ee dunida oo dhan taasi oo loogu mahadnaqay sidoo kalena loogu dabaaldegay daafaha adduunka ee Islaamka dhamaadka koobka adduunka ee sanadkan ayaa ku beegan 18 Diseembar oo xilligaasi oo la kala calfan doono koobka dahabiga ah halkaasi ay u xaadir doonaan labada dal ee Argentina iyo Faransiiska dalka Faransiisku waxa uu doonayaa inuu koobka dunida difaacdo oo uu sanadkan qaatay isagu sidaasna uu ku noqdo saddex ama wadankii labaad ama saddexaad ee ku guuleysta isla laba mar oo isku xigta koobka dunida dalalka laba jeer oo isku xigta ku guuleystay mar hore waxa ka mid ahaa wadanka Talyaaniga iyo wadanka Brazil qaybta saddexaad labada dal ee ku tartamaya inay noqdaan kaalinta saddexaad galaan ayaa kala ah wadanka Croatia iyo wadanka Morocco oo iyaguna 17 bishan wada ciyaari doona kubadda cagta ee sanadkan ayaa waxyaabo fara badan soo bandhigtay iyagoo oo indhaha caalamkana aad ugu soo jeediyay quruxda iyo haybadda Islaamka ee wadanka Qatar dalka Qatar oo marti geliyay waxa aad looga soo dhaweeyay malaayiin qof oo ka kala yimid daafaha caalamka kuwaasi oo ay Qatar u diyaarisay goobo casriya iyo adeeg dadweyne oo bilaasha